dhalinyarada waxa weeye in baarista geliyo maadaama ninkaas soo hadlay ee halkaa ka hadlay uu buuqaasi dabada ku hayo waa in la baaraa in lacag ku soo dhaceen telefoonadooda wararka soo dhex maray waa in baarista geliya yarka meesha laga shidaalinayo waxaan sheegayaa oo aan bulshada u cadeynayaa baro saabka cusub ee maanta yimaada ee halkan aan hore u aqoon ee aan waxba ka garanayn ee xaaladaheeda la socon ee halkay colaadda ka soo bilaabatay aan war u hayn inaanu ka bixi karayn inaanu ciidanka madaniga waxba ka garanayn inaanu waxba ka garanayn deegaanadii si loo kala deganaa dhibtu halkay ka soo bilaabatay iyo halkay ku dhammaanaysona aanu odorasi karin iyo bariyahan waa maqlayay buuq yar oo dhalinyaro magaalada joogta ay wado oo la buunbuuninayo waxaan u arkayaa dhalinyaradaasi buuqeeda wuxuu salka ku hayaa in la yidhaahdo ina cumar camey oo madaxweyne ku-xigeen puntland ka noqday ninkaasunbaa buuqaa kiciyey isagumaa madaxweynaha la hadlay isagaa ku yiri madaxweyne waxaan doonaynaa bara saabka inaad bedesho halkaa waxaan doonaya odaga inaan kelmad idhaahdo ina cumar camey adigu somalilander ma tihid madaxweyne ku-xigeen baad puntland ka ahayd inaad kala jeclaysato nimankii aabahaa dilay oo aad qaarna u sacabatunto qaarna tiraahdo madaxweyne bedel de waa indha la-aan un baan u arkaa waayo sababta ku tahay reer cergaa ma tihid reer somaliland ma tihid puntlander baa tahay puntlandernimadaada aamin madaxweynaha qaranka haddii uu habro kasoo hadla garoowe iyo oday meel ka hadla dhigaysanayo dimashaba maanaan geyni midda labaad waxaan sheegaya dhalinyarada ah uu ninkaas qarashka usoo dirayo ina cumar camey dhalinyarada oo qarashka usoo dirayo waxaan u sheegayaa looma baahno maanta dadka in la kala qaybiyo xaalad dagaal baana ku jiraa goobaha nafwaaga hayskayaan yarkaa qaylinaya madaxweynaha qarankaa igmaday bara saabka miyay uga caqli badantay dalka miya cid baa uga lex jeclo badan madaxweynaha qarankaa yiri xilka ii hay isagaa ku yiri joog gobolka isagaa igu yiri igu matin aniga waana madaxweyne gobolka yarka waxaan u arkaa in xaggaa laga soo shidaalinayo ina cumar camey lacag usoo dirayo maantana ma baanin cid isaaq kala qaybisay reesha isaaq kala qaybisa ciddii dawladda ugmataana joogaysa tan ciddii dawladda ugmataana ka talinaysa cabdiraxmaan cumar xeelona waxba looma yeedhiyo oo madaxweyne qaranka cidduu isagu xil magacaabay isagu magacaabi kara laakiin madaxweyne maaha kii miidiyaha wax looga tilmaami jiray oo loohan jiray madaxweyne qofkaasaanu sanifnayn naga bedel kaana waanu jecelahay noo kan sanifaad iyo jacayl midna laguma joogo xilka dawladeed waxaan leenahay war xaalad dagaal baynu ku jiraa magaaladuna buuq uma baahna ninkii buuq doonayo dee goobaha nafwaagayskii halkaas rasaas ka dhacaysaa dhalinyarada waxa weeye in baarista geliyo maadaama ninkaas soo hadlay ee halkaa ka hadlay uu buuqaasi dabada ku hayo waa in la baaraa in lacag ku soo dhaceen telefoonadooda wararka soo dhex maray waa in baarista geliya yarka meesha laga shidaalinayo waxaan sheegayaa oo aan bulshada u cadeynayaa baro saabka cusub ee maanta yimaada ee halkan aan hore u aqoon ee aan waxba ka garanayn ee xaaladaheeda la socon ee halkay colaadda ka soo bilaabatay aan war u hayn inaanu ka bixi karayn inaanu ciidanka madaniga waxba ka garanayn inaanu waxba ka garanayn deegaanadii si loo kala deganaa dhibtu halkay ka soo bilaabatay iyo halkay ku dhammaanaysona aanu odorasi karin bara saabkaas hore u joogay ee xogta haya halkay kasoo bilaabatay iyo halkay ku dhammaanaysa iyo halka hadda xaal marayo unbaa ka bixi karo maadaama gobolku gobol colaadi ka jirto yahay aanu gobol deganaansho aanay ka jirin ay tahay gobol la wada degan yahay oo madad badan wada degan yihiin ahaa gobolku mashaariic badan lagu soo qaatay oo Soomaaliya ka yimi waxa uu ka bixi kara bara saabka joogay 3 sano unbaa ka bixi kara sida madaxweynaha cidda ugu lex jecel badan inta ma jirto